السلام الله عليكم صاحبتي قاليga oo muuqaalkani waxaan ku baran doonaa saddex waxyaabood oo kala ah koow cut laba copy saddex baasti hadii aad la socotay casharada aan ku soo gudbinay barashada excel ka saddexdan waa fahmaysaa sababtoo ah excel ka ayaan ku soo sharaxnay cut copy iyo baasti waxay kala yihiin balse hadii aan casharada hore soo daawan maanta ayaad baran doontaa saddex waxay kala yihiin hadii aan ku hormaro copy waa inaad wax meel ka koobiyeyso oo xog meel ka koobiyeyso meel kalena aad u koobi karaysato cutna waa inaad xogta oo dhan aad meesha ka qaado adigoo waxna uga tagay meel kalena aad geyso bastina waa markii wax meel lagu baasti gareynayo ama lagu koobi kareynayo saddexdan casharka ayaan ku fahmi doonaa qoreyn waxaan baran doonaa copy san casharka u koobiyeyno waxaan maraynaa saddex wado dadka koobaad horta ugu horeyn waan dooranaynaa ilaa intaan dooranaynaa san u copy kareyna saddex wadaan marno dadka koobaad right click inaan iraahno halkaan ka xulno copy midda labaad inaan tagno home tab qaybtan ribbon-ka ah halkaan aan ka dooran qaybtan clipboard-kan halkaan ka xulno copy wadada saddexaad inaan qabano control s control c saddexda wado ayaa wax loo koobiyeeyaa صح qaabka wax loo cut gareeyo ama loo remove gareeyo saa u remove gareeyo saddex wadaan maraysaa right click inaad tiraahdo halkan ka xulata cut oo ah jarid inaad xogtan dhammaanteed meesha ka qaado haddii aan ku dhufto fiiri xogtii dhammaanteed way ka qaado qaabka labaad inaan ka xusho halkan aan clipboard-kan aan ka xusho oo ribbon-ka qaybta ka mid ah cut xagga aan ku dhufto xogtiina waa qaadanta iyo inaad la qabto control x saddexda waxyaabood ayaad maraysaa markii aad doonayso xog inaad dhammaanteed aad ka qaado meesha meel kalena aad geyso adigoo meeshii hore ka soo qaadayo tusaale ahaan oo kale hadda labadan balas barbar dhigano saan casharada ku soo barnay kanna aan doorano hadda waxaan doonayaa inaan halkan ka soo qaado halkan soo dhigo oo copy aan maro right click ayaan halkan ka xulanaya halkan waxaan ka xulanaya copy xogta halkan way oolaysaa halkan way oolaysaa inta ayaa imaanaya halkan waxaan ku oranayaa paste haddaba saan paste u sameeyo waxaan maraya saddex wado iyaduna dadka koobaad inaan halkan ka xusho paste fiiri halkan inaan ka xusho paste fiiri hadda waa la isoo paste gareeyo inaan right click iraahdo halkan aan ka soo xusho paste haddii hadda kan soo weynaysto kale oo halkan ay right click iraahdo halkan waxa iga soo baxaysaa paste ay iga soo baxaysaa waa u jeedaa fiiri markaan saaro fart saaro waxa ay soo baxaysaa paste fiiri waa paste iyo inaan qabto control v qaabka ayaa loo soo paste gareeyo control v right click inaad halka ka xulato paste ka xulato iyo inaad tusaale ahaan oo kale markaan hadda ka xusho kale aan ka gareeyo halkan way ku soo baxaysaa paste iyo halka ka soo baxaysaa oo jeeda paste meesha ka soo baxday ama inaan halka ka xusho paste ama inaan control v qabto qaabkaas waa qaabka wax loo remove gareeyo haddii ka waran aan doonayo xogtaan inaan koobiyeeyo kale waxaan helaad baan saaraya halkan waxaan ka dooranaya copy halkan ay imaanaya control v ayaan ku paste gareynaya paste saddex qayb weeye halka inaad timaado ama inaan control halkan ka xulato paste ka xulato halkan ama inaad qabato control v marka copy weeye halkan uu oo la casharkii halkan uu oo la labada qayb baan maraya qaabka wax loo copy gareeyo haddii casharka hadda aan doorto dhammaantiis oo halkan ka xusho copy isna waa wadadii kale halkan ka xusho paste isna waa sidoo kale haddii aan doorto oo control z taabto isna waa wadadii kale halkan aan imaado halkan ka xusho paste hadba midka aan madho waa sidoo kale haddii maraan kugu soo celiyo haddii aad doonayso xog inaad meel ka soo qaado meel kale la geyso saddex wadaan maraysaa
xogta dooro ka bacdi halkan ka xulo copy ama cut hadda ka rabto marka xogta aad soo cut kareyso ama soo copy kareyso halkan inuu ka xulo halkan paste ka xulo ama halkan ka xulo paste ama control v taabo saddex wadana waxa lagu paste kareeyaa laakiin xogta marka hore waa inaad doorataa markasta waxaan ku tali lahaa inaad xogtaada copy ka qaadato oo aan iska remove karin sababtoo waxa dhici karta inaad hadhow xogta u baahato ama markii xaggan ku soo paste kareyso in halka wax ka khaldamaan oo kale ama wixii aad garan weydo kale hadhow waxa u baxsan doontaa xogtii kale oo halkan ku taalay waadan hadda xogtan ayaa u baxsan doontaa